بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الوضوء من مس المرأة وحباب يهي الوضوء ويسيسي من مس المرأة هوين إذا تابشد إذا لغا ويسيسته يعني الروح يسوي سقبه هدو هوين تابته ما كوي سقادنا يا تابشدا mise kama way saqaadanayo waa قال الله تعالى ألا وحيري أو لامستم أما آتابتان النساء دمركة فلم تجدوا أيضا هل الماء أنبيو فتيمموا قبيستا قرئ وحا الأخرية بوري أو لمستم أو لامستم أنا هاي بمعنى وحوي لمستمته يا لامستمته ومعناه وكل دوية آيداس وآيدا أي دليشدان علماء قبتا هوين كتاب الشضوضة إني ويسادة جبينيسو lamsiga aayadda ku soo arooray bayna waxay ku fasirayaan inay tahay daabashada gacanta sidaana waxaa ku fasiray Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda iyo غيرkii laakiin macnaha laamastum inay taabashada gacanta tahay la islama ogola oo saxaabadii baa isku khilaaftay hadii Abdullah ibn Mas'ud uu sida maray waxaa maray Abdullah ibn Abbas baa sidaasi ka gadisan aayada ku fasiray oo laamastum wuxuu ku fasiray ay jaamactum markaad u galmootaan ayuu ku fasiray marka lamsigan bimaana galmo ayuu ku fasiray taabashada jidhka ma khilaafkaas aayada tafsiirkeeda la isku khilaafsan yahayna waa khilaaf caana weey marka quraanka kariimka loo laabto iyo isticmaalkiisa lamsiga iyo masiga inta badan quraanku wuxuu u isticmaalaa galmada ee taabashada gacanta uma isticmaalo fi suurati al-baqara dhowr meelood bay kaga timid qisadii maryam walam yamsasni bashar meelo dhowr quraanka ay ku timid bimaana galma laga wado taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha rajaxaya ee tafsiirka ibn Abbas oo aayada in laga wado galmada yaan laga wadin taabashada gacanta waxa kale xoojinaya aw laamastum hadii lagu fasiro taabashada gacanta aayadu hal xugun bay ka hadlaysaa markaa aw laamastum laakiin hadii galma lagu fasiro laba xugun bay kala qaadanaysaa oo macna fiican oo guda weyn baa ka soo baxay laana ayadu waxay ka hadlaysay markii biyo la waayo la gabagabaysanayo ayay ka hadlaysay marka waxay ahayd aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'it aw laamastum an-nisaa hadii laamastum marka lagu fasiro galmada aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'it lagu fasiro saxaradii iyo kaadidii waa xadadkii yaraa aw laamastumna waxay noqonaysaa xadadkii weynaaye qabayska waajibinayay baa marka lagu fasiri sida markay noqoto falam tajiduu maa'an fatayammamu ood biyo weydaan gabagabaysta macnaha marka lagu fasiro aayada waxaa soo gudagalaya markii biyo la waayo xadadka yar ee weysada waajibiya iyo ka weyn ee qabayska waajibiyaba hadii biyo la waayo in laga gabagabaysanayo labadiiba aayada markay way soo wada galayaan laakiin hadaa taabashada gacanta ku fasirto aayadu waxay ka wada hadlaysaa uun xadadkii yaraa ee weysada jabinayay macnaha hore marka aad uga qurux badan waa macnaha ay u xoog badan tahay aayada tafsiirkeedu aw laamastum in galmada laga wado markaan cuskano isticmaalka quraanka iyo macnahaas hadda aan sheegnay intaba waxa kale xoojinaya oo macnahaas aayada in laga wado xoojinaya axaadiistan inoo soo socota oo de markii quraanka tafsiirkiisa la isku khilaafo ama ihtimaal yimaado waa in axaadiistu ay tafsiirkeeda loo noqdo أحاديث عضينس
sidaas daraaddeed axaadiistii nebiga marka loo noqday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaduna labadaa tafsiir mid bay xoojinaysa waana tan axaadiistii ku timid وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحوري أتى النبي نبي وحا أيمي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نبا أيمي فقال مركز وحوري يا رسول الله رسولك إلهي ما تقول محال ليضه في رجل نين دحدي أما نين أرنك نين كاسو لقي الله كل ما امرأة هويني يعرفها هويني ذا سوء قرنيه فليس مؤصا أهان يأتي مدء يماد الرجل ننكو من امرأته هويني دي سحق هذا الشيء وحمي كلمة يماد إلا هدو تشيره قد أتاه شيء ولا يمد منها هويني دا حق هذو كلا يمد بمعنى ننبا هويني لكل مي وقرنيه markaasuu wuxuu yidhi nin reerkiisa wax kasta uu ku samayn lahaa ayuu haweenadaa ku sameeyey haweenada ajnabiga uu garanayay wixii uu ninku xaaskiisa ku samayn lahaa buu ku sameeyey hayra laakiinse annahu isagu lam yujaamichaa muusase u galmoonin wixii kalese dhan wuu ku sameeyey hadday taabasho tahay hadday dhunkasho tahay wax alla wixii galmo ka horrayso dhan wuu ku sameeyey laakiin muusan u galmoon ayb فليس معهن يأتي مد إيمان الرجل منكم من امرأته شيئا وحون إلا قد أتاه وأيمي أما أتاه وليمد منها حق يدو كليم غير لكن أنه يسقل لم يجامعها موسى وقلمون محاي نينكا قلت هايب رسولك كوير صلى الله عليه وسلم رسول الله نينكا أرنك سبحوك لي قال وحيري معاذ فأنزل الله ألا وحسودك تعالى كرهي هذه الآية آية وسودك ونينكي جوابت سؤاشي سلقك جوابي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صلاة وحالي توسي وهجاج مالنت اللباد إذا ضرف باللوج مالنت إيا ضمات كذا إيو قبل هبينك كم ذا صلاة دي الشنطة ولا جوده طرفي النهار وحقلية يعني صلاة الصبح iyo salaada duhurka iyo casarka galay wazulafan min al-layl waxa galay cishaha iyo maghribka saas way macna marka salaadaha shanta hagaaji waay innal hasanati wanaagiyalkaas salaadaha aad sameynaysiyo wanaagiyalka iyo khayraadkaasi yudhibna waxay tagsiyaan as-sayyi'ati xumaayalkay tagsiinayaan yani waa lagu dambi dhaafaya waay فقال مركز وحوري له إساق النبي وحوكوير صلى الله عليه وسلم آيات مركز سودكتي توضأ ورنيه هو يسيسو ثم كدبنا صلي تكوكوير رواه حوري أحمد ووري والدار قطني كذلك الترمذي بصوص صاري وانا حديث ضعيف هو طيب ضعفك حديثك وحوي سند كي سوحا علا كوتشرتو عبد الرحمن بن أبي ليلى أي معاذ كوريني استونا وحب موسى كمقلين saas daraaddeed sanadka inqitaacaasa ku jira inuu sanadku kala go'an yahay oo ninkaasi uusan mucaad ka maqlin waxaa jasmiyey al-imaamu tirmidhi bayhaqi ibn hajar iyo qeyrkoodba xadiidka marka waa xadiid daciifa waxaa daciifiyey tirmidhi iyo sheekh albani iyo muxadisiin kaleba waxaa ka sii daran xadiidkii isagoo sanadkiisu munqatic iyo daciif yahay ayuu haddana wuxuu khilaafsan yahay أحاديث كتب الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عند أحمد وغيره أو قصة شيء نين كان قصة شيء أي حديث كان خلاف سين أو قصة وحي أحد نين كان النبي قوي صلى الله عليه وسلم مركو أشهك تهويني إنه كسمي وحكستا من أجنبي كا وحن قلمك أهين ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waa u kaadi muusan jawaabin kadibna aayada soo degtay aayadu markay soo degtayna wuu ku dul akhriyay ninkii markaas wuxuu rasuul ilaahayow ma anigay khaas ugu tahay mise waa layla qaba markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ay ummadaydo dhan baa iska leh qisadu sidaasay sax ku tahay oo saxiixaynka iyo qeyrkood ku timid kuma jirto marka waxa la yiraahdo weysayso iyo tukatoona kuma jirto sanadka daciifka buu lafdigaasi ku yimid marka maxaa ku jira ضعف السند مع المخالفه ku jirta marka nakaaro way macna saas daraadeed lafdigaasi ma sugna xadiidku muxuu ahaayay ma sugna waa xadiid daciif ah
daciif ha ahaadee yaa deliishanaya waay waxaa deliishanaya qolyaha qaba taabashada dumarku inay weysada jebinayso qolana ha qabeen taabashadu shahwo iyo shahwo la'aanba ama dareen ku taabo ama dareen la'aan ku taabo way deliishanayaan xadiidka qolada waxaa uga sii xoog badan dhahaysa taabashada haddii dareen la socdo unbay weysada jebinaysaa maxaa yeelay ninkan haweenayda waa taabtaabtay waa dhunkaday shahwaana u geysay soo ma qoladaasaa deliishanaysa cidda yihiinna waa u tegi doona insha allahu tacala laakiin xadiidka maadaama uu daciif yahay wixii masale lagu dhisayna waa daciif وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه كان وحوها يقبل مضن كذا بعض أزواجه حاسسكي سقار كمذا ثم كدبنا يصلي ووتو كنشري ولا يتوضأ من ويسي سنشر انتو حاسسكي سردون كذا أي إسكتو كنشري إساقون ويساقاذنين رواه حوري أبو داود وري والنسائي كذلك أحمد يطارقطني يبيهق يقون ويورينا يعني. قال أبو داود وحوري حديث كان مركو وري كذب هو حديث كان مرسل ومرسل بول وحكوض ومنقطع سيدنا صوري وصور شاقني سلفكو مرسلك انقطاع ودن بيو استعمالان متقدمين تبان ديلا طيب وحوري هو حديث كان مرسل واي صوبته وحوي إبراهيم التيمي لم يسمع كموسا مقلين بوري من عائشة رضي الله تعالى عنها إبراهيم التيمي عائشة وحبوسا كموسا كمقلين بوري ما دام أوصى وحبا كمقلين وميتك لو يقانو يعني مصطلح لو يقانو محوها منقطع على هذا لأنه مرسل كصحابي يقولوا قاية صوما سيدا محوها اصطلاح كذال ضمبي محوها مستقر كالنقضي وقال النسائي وحوري ليس موسى نهان في هذا الباب باب كان دحديث باب كان تابشدو يدونكشدي ويسدا inay jabinayso inaysan jabinaynin ليس في هذا الباب باب كان دحديث موسى نهان احسن حديث كوناكسن من هذا الحديث حديث كان مid كوناكسن كما سغنا باب وان كان هبا هذا مرسلا mid kala go'an haba ahaade mid sanadkiisu kala go'an marka labada imaam wa Abu Daawud iyo Nasaa'i waxay tilmaamayaan xadiidka sanadkiisu inuu yahay inuu munqati' waana sida ay u sheegay way macna xadiidka sababtiisu waa munqati' oo muxuu ahaayay Ibrahim al-Taymi Aisha mu uusan ka maqlin oo meeshaas uu xadiidka uu inqita' kaga jira laakiin tariiq lulay oo waxay soo saareen Abu Daawud iyo Tirmidhi ibn Majah iyo Ahmad Urwa ibn Zubayr an Aisha أو عروة المزني صحيح إنه عروة بن الزبير إنه يهاي عائشة وحو كورينيا إن أي تري نبي صلى الله عليه وسلم وحو دون كذي دمر كيس قار كميد كدي من الصلاة أي أبا حي من أوسن ويسيسنين عروة وحو يدمر كيسيدا كتري فقلت لها من هي إلا أنت بانكوري markay tiri nabigu xaasaskiisa mid buu dhunkaday oo kadibna salaadu aaday mana weysiisan waxaan ku yiri buu yiri oo soo adiga ma aha baan ku yiri haweenayda la dhunkaday soo adigu ma saasaan ku yiri habareetibe markaasay qososhay Aisha radiyallahu ta'ala anha yani taqriban wa tasdiiq hadithkaas hadithu Aisha oo ay madaasi wariyeen oo isaguna lafdiga ku yimid asagana waxa weeye sixadiisa iyo dacfigiisa aad bal isugu haysta aa'imadii hore mutaqaddimiinta ahana xadiidka way daciifiyeen oo waxa daciifiyay Bukhari ibn Ma'in Thawri Yahya al-Qattan Tirmidhi Daraqutni ragaasoo dhan way daciifiyeen waxayna u daciifinayaan cilada dhowr ah Habib ibn Abi Thabit baa ku jiray leeyihiin oo muxuu ahaa mudallis ah una cancanay waa mid labaade Urwata Muusa waxba ka maqlin oo inqitaaca ku jira sida Ahmad ibn Ma'in iyo Bukhari Abu Hatim ilayhi waa midda saddexaade matnigiisu wuxuu mashhuur ku yahay xadiidkani ma aha weyse kuma saabsanee wuxuu mashhuur ku yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam asagoo oo sooman buu dhunkaday xaasaskiisa sidaas uu caan ku yeelay ama muusan weysaysinta xadiisku waxay leeyihiin caamba kuma matnigana halkaas ay ka durayaan adiga xadiidkan Aisha qoliyahaasi haba daciifiyeen laakiin qoliyo badan oo iyaga aan ahayn baa xadiidkan saxiixinaya oo mutaakhiriinta u badan oo kamid yahay Zaylaci ibn Turkumani Sheikh Albani ibn Hajar laftiisa sanadkiisa waa xoojiyay yani wax weeyaan dhowr meelood oo inuu is xoojinayo muhiimadu marka waxa weeye
culimada qabta xadiidkani inuu sugan yahay labada xadiid bay isku xoojinayaan dariiqan ibraahim at-taymi ee munqati'a iyo dariiqa urwa ibn zubayr an aisha oo ciladahaasi ku jiraan bay isku xoojinayaan markaas ay leeyeen xadiidku xasan buu noqonay ama saxiix bay ka dhigayaan macna tayib وعن عائشة رضي الله عنها محو فائدينيا way marka wuxuu faa'iideynayaa waxaana daliishanaya culimada qabta mutlaqan ba ama shahwa u taabo ama gacantu yaani wax way haysaga dhacdo taabasho haweenay aad taabatay waysada ma jabiso sinaba qoliyahaas daliishanay maxaa yeelay nabigu waa dhunkaday dhunkashaduna waa shahwa ilay haweenay la dhunkanayo يعني waxa way waxun tartiib isaga gacan ku dhacday oo kala ma يعني dhunkashadu waa nooc يعني dareen kamida dareen shahwa keenis وعلى هذا الأساس ما دام asagoo shahwa u dhunkado taabtay hadana ayna ka jabinin taabasho dhan ma jabirseelay waysada qoliyaha saadilishanayo xadiiska طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri in kana wuxuu ahaa رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولku wuxuu ahaa la yusalli mitukanayu ahaa والحال إني أنقول معترضة مد ببعا أنا أما مد جوجلن بين يديه هرتيسة اعتراض الجنازة جنازة سيدا أي جوجلن توكله يعني جنازة مركه هرت هذا اللي جوجله الله ببعه سيدا سوكلتان نبي قلت كان يهرتيسان أوجو ببعنا بيت طيب حتى إذا أراد مركو دونه أن يوتر إنه وتريه مصني وإتابني يبتري بالرجل لوكتيس أوجو تابني يعني markuu salaada habeenkii oo dhan soo wado oo ragcadaha ugu dambeeya witirka uu tukanayo iyo lugtiisa igu taabanay yani uu kicinay hurdadu kicinay طيب رواه النسائي baa wariyay طيب xadiidka sanadkiisa ibn hajar uu saxiixinaya laakiin saxiixaynka waxa ku yimid lafdi ka ku dhow oo ay leedahay waan seexan jiray bayna yaday rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam nabiga hortiisaan seexan jiray warijlaaya fi qiblatihi isagoo labadayda lugoodna meesha qibladiisa ee uu ku jeedo labadayda lugood iyadoo isagoo yaalaan fa idaa sajada ghamazani markuu sujuudahayo lugta iga qandhuufanayo iga taabanay fa idaa qaama basattuha markuu istaagana lugaha waan iska fidsanay markuu soo sujuudayana lugtu iga taabanay markaasaan ka laabay waxay tiri wal buyuutu yawma idin laysa fiha masaabih guryuhuna maalinta iyada ah faynuus ma ayna lahayn guryuhu mugdi bay iska ahaayeen nabiguna gurigu ku tukanaya gurigu waa iska xiriiri aniguna meeshuu ku sujuudaan lugaha ku hay markuu soo sujuudana waa taabanaya waa ka laabay markuu istaagana waa fidsanaya xadiidkaas saxiixaynku ku yaala waana xadiid yaani wax weey kan ay isku macna dhow yihiin wuxuu faa'iideynaya oo daliishanaya sida waxa kaleeto sidoo kale xadiidkan daliishanaya ee culimada qabta inaysan dumarka taabashadooda weysada jabinin ee nabigu salaadu ku jira salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa iyo reerkiisuna lugta ka taabanaya qoliyaha diidan baa waxay leeyihiin waxa dhici kartay leeyihiin in lugteeda ay mara saarnayd waa ihtimaal baciid ah waxa kale oo dhici karta inayna wax saarnayn waa dhici karta sooma marka waxba saarna ma xaqiijin karaan laakiin wax weeyaan waa qaab muxuu ahay iyagu ay jawaabta ku bixiyeen oo xogaa xadiiska ay ka fakadayaan way macna طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri فقدت waxan waayay tiri rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuul allah waayay tiri ذات ليلة habeenada kamida min al-firaashi gogoshi baan ka waayay tiri uu garab jiifay iyadoo hurdo bay muxuu ahay mar dambe waxay aragtay nabiga oo dhinaceeda ka maqan طيب faltamastuhu waan raadiyay tiri waan dalbayo waan raadiyay gurigan ka dhex doonay فوضعت markaasay dhacday yadii gacantaydu ala batni qadamayhi labadiisa goomadood yaani wax weeyaan batnigood ama calooshooda waa meesha macnaha dhulka qabata waa isma gaadhada iyo meesha dhulka qabata ayaa batnul qadama طيب فوضعت way dhacday yadii gacantaydu ala batni qadamayhi labadiisa goomadood يعني وحوي هوستودا ayay qabatay iyo meesha dhulka qabata wal xaal huwa nabigu fil masjidi uu ku jiro في المسجد أي في الصلاة نبينا مركا وصلاة كتيره وهما لوضد يعني في المسجد أي في السجود بيكوده في المسجد أي في السجود
markaana nabigu uu sujuudsan yahay sallallahu alayhi wasallam wahuma labadiisa lugoodna mansuubataani laba taagtaagan ay yihiin mansuubataan yani labada ruux markuu sujuudsan yahay lugihiisu farahoodu ay dhulka hayaan luguhuna ay kor u taagan yihiin taasay ka wadaa wahuma mansuubataan labadii lugood kor bay u taagan yihiin farahoodiina dhulkay hayaan sida ruuxa sujuudsan oo kale والحال هما لبدي لغود منصوبتان أما لبدي قمدود منصوبتان لبا تاغن أيهن وهو النبي يقول مركا أوليه اللهم الله يو إني أنوغ أعوذ وان مغنجلي برضاك رضاها كان مغنجلي من سخطك عرضا ذان كمغنجلي وبمعافاتك عفينت ذان مغنجلي ومن عقوبتك عقوبة ذان كمغنجلي وأعوذ وان مغنجلي بك أذان كمغنجلي منك أذان كمغنجلي يعني نحريست ذان مغنجليو عقوبadaadii cadaabkaagan ka magan galay macna la uhsi koobi maayo oo ma koobi karo sanaan amaan calayka korkaaga la amaan si kasta hadaan ku amaano amaantaada ma dhameystiri karo ma koobi karo waa anta adugu kama athnayta sad amaantay baa tahay ala nafsika naftaada korkeeda adu amaantay sad adugu isu amaantay baa tahay waa wardu duuban aan waxna ka tagin anugu amaantaada ma dhameystiri kare laakiin adugu sad isu amaantay baa tahay way macna رواه وري مسلم وري والترمذي وصححه صحيحيي طيب يعني المؤمنين عائشة رضي الله عنها مالها waxay istiri nabiga markay meesha ka weyday malaha amu baxay baystiri xogaa masayri waxba yara galay marka amu baxay baystiri kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam hawshaaba kuma jire ilaahi tabaaraka wa taala uu sujuudsan ducada soo akhrinay ujeedada xadiidka loo keenay waxa weeye nabiga sujuudsan labadiisa gomodoodna ay taagan yihiin ayaa gacanteedu ku dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam weysadiina kama jabin salaadiina kama jabin waxa laga yaabaa taana inay dhahaan lugta nabiga waxa laga yaabaa mar inay saarnay soo oo nin sujuudsan miyaa lugtiisa mar fuusha uma badno sooma saas macna haday tii hore way huruday way duuduubnay dhihi lahaayeen هذا تنم النبي ميودو دوبنا واي marka xadiiskani wuxuu kamid yahay ahadiista iyadana ku tusaysa taabashada dumarku inaysan weysada jabinayn sheekhu wuxuu yiri marka wa awsatu madhabka ugu dhaxaynta badan oo yajmacu kulminaya bayna hadhihi alahadith ahadiista dhexdeeda kulminaya waa madhabu man la yara waa madhabka dadka aan arkaynin oo aan ayna la qumanayn اللمس من لا يرى عدة أن أركين اللمس تابشدة ينقض إنو جبينيو إلا لشهوة شهوة درتد إنو يهيموي يعني وحو يلي مذهبك أحاديث تاسد ظاهر كيدو أدمودو إن إسكهر إيمانيس مذهبك معنا أي سقوط ماضو وحديث خلافك كقبحه مذهبك أوروني وحوي ومذهبك قبه أركي تابشدو إني ويسد جبينين إلا إني شهوة لصعتموي ووحي ku jamcinayaan ahadiista dhahaysa way jabinaysaana waxa lagu xambaarayaa markii shahwa aad u taabato ahadiista tilmaamaysa inayna jabinayninna waa markay gacantu uun kaaga dhacdo marka ayna shahwa aad u taabanin sidaas uu ahadiista ku jamciyay laakiin su'aashiisa wadiinta la waxay jamacaasi ma xumaadeene aawe ahadiista la jamcinay maxaan soo marnay bal dib ugu noqdo ima hadiis baan soo marnay هل حديث باكوتشري واحد المامية إني ويسيدة جبينيا تابشود إني ويسيدة جبينيا وحديث كي حديث كي معاذ بن جبل السجن محن صور شيء إنه ضعيف فيه سيداس درادة وحى إنه نبت جليسة وأن معارض لهين أحاديث الشيء جيسة إن أي تابشود أين ويسيدة جبينيا مرحبا يضو نبت قشيء ومعارض صحة أين له صحيحة أين لهين هذا إلا للجمعية ما بتشربه marka waa in la yiraahdo taabashada gacanta iyo weysada ma jabiso wahada huwa sahih sidaas saxa shahwa iyo shahwa la'aan in loo kala qaadana daliil badani ma haysato in la yiraahdo taabasho dhan ba weysada jabisana sida Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah uu leeyahay waa ad'afu al-aqwal way fi al-mas'ala wana madhabka Shaafi'iyada yani mas'aladan aqwaasha ku soo arurtay qowlka ugu daciifsan ee ugu tabardaran waa qowlka qaba يعني تابشوا دم با ويسده جبنيس قولكاس او ضعيف ugu tabardaran xagga daliilka macna waxa soo raaca qolada u kala qaaday shahwo iyo shahwo la'aan
waxa ugu xoog badan qowlka dhahaya sinaba taabashada caadiga ee gacanta in galma ahayn weysada ma jabiso qowlkaas daliil ahaan u xoog badan sida loo kala qabana inaysan jabinaynin oo waxba ayna jabinaynin waxa qaba xanafiyada muxaqiqiin fara badanna way rajaxayaan inuu jabinayo si walba taabashada mujarradka inay jabinaysana shaafiiciyada qaba shahwo iyo shahwo la'aanna waxa u kala qaada maalikiyada iyo xanaabilada saas daradeed sheekhu wuxuu inoo rajaxay madhabkii xanaabilada sooma iyo maalikiyada la socdo waa madhabkan xadiista uu ku jamcinayo waxyaalaha xoojinaya waxa kamida madhabka inayna taabashada caadiga weysada jabinin waxa kamida axaadiista ku soo aroortay marka ruuxu uu seexanayo in uu weyse qab ku seexdo oo kamid yahay xadiidka Baraa ibn Aazib fi sahihayn midkiin markuu seexanayo ha weysaysto weysada salaada oo kale kadibna dhanka midigta ha u seexdo ila aakhir alxadiis طيب su'aashu waxay tahay marka ninka hadii la yiraahdo xaaskiisa weysada ka jabinaysa xaaskiina gogol buu kula seexanaya sida nabigu xaasaskiisa hal gogol kula seexan jiray wax u dhaxeeyana ma jiro weyse qab inaad ku seexatana waa laga rabaa bal aduu iswaafaji zuruubi karta nin xaas qaba oo xaaskiisa la seexanaya weyse qab kuma seexan karo habeenkii ala madhhab shaafiiciya sidaas daraadeed xadiiskaasi wuxuu kamid yahay axaadiista xoojinaysa nabigu xaasaskiisu la seexan jiray weyse qabna waa ku seexan jiray maxaa meesha ka muuqda marka inaysan ka jabin jirin axaadiista madhabka xoojinaysa kamid طيب adiga ra'yigaasi waa daciif ra'yiga hore waxa jabinayay waa galmadu inay jabinayso iyada meel dhig way macnaha amma taabashada caadiga ma baabul wudu'i min massil qubul wuxuu baabu yahay alwudu'i weysaysi la weysaysto min massil qubuli qubulka taabashadiisa laga weysaysto qubulka waxa weeyaan waa xubinka taranka la yiraahdaa ama ka ragga ha noqdo ama ka dumarka ha noqdo labadoodaas oo magacu ka dhaxeeya oo qubulka la isku dhaha macna طيب عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري من مس الروح تابت ذكره حبن كيس ترنك الروح تابت فلا يصلي يوسن تكنن حتى يتوضأ إلى أويسيسته رواه وري الخمسة شنتي باورس وصححه وحنا صحيحية الترمذي وقال البخاري وحوري هو حديث كان بصرة أصح شيء كأو صحيح سوي وفي هذا الباب كان دحديسا كسو أروري وكان صوت المعنى لما فهميو إنه حديث كصحيحين لكن وحو قبا باب كان حديث كسو أروري وحوك بدل حديث بصرة ساسي معنا طيب وفي رواية كلوحا كسوغان أولي أحمد أسوغنا ذي والنسائي عن بصرة لقورني أنها يدو سميعت وحي مقشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يسقوله ويتوضأ ولقوي سيسا من مس الذكر حبنك ترنك تابشدي سوى لقوي سيسا وحشيق يدو وهذا كني يشمل وحو كل صنية وصوة ذقلية ذكر نفسه روح لفهان تيسا ذكر كيس وذكر غيره إساق عيدانا هين ذكر كيس إيش أوحو تلمامية لفظك هو مركز في رستان من مس ذكره على قوله معناه هذا وحو كينا يا هداد أون حبين كاغا تابتون بيويسدو كاتشبي صوما لكن لفظك انضمبؤه يعني يتوضأ من مس الذكر ما هي فائدين نساء هدي أذ حبين كاغا تابتو أما ميت روح كلا تابتو ساس فراد وحو لي كان ضمبا كقودا وينو كي هوري كقودا وين كان وحو فائدين يا هداد حبين كاغا تابتو يا حبين روح كلا هداد تابتو إني ويسدو كاتشبيس ساسي كينيسا معنا من مس الذكر لأنه إطلاق باكو جرى معنا يا عموم طيب حديث تاسي وحي فائدين يعني حديث بصرة بنت صفوان وحديث صحيح هو واحد صحيحي أحمد بن حنبل الحاكم بيهقي ابن معين ابن حبان ابن خزيمة دار قطني النووي ابن حجر الشيخ الباني إيه غير كود بحديث بصرة وحديث صحيح هو شواهد فربضنا وليه هاي وإنوص الصعودة وكوان إيمانيا وعن أم حبيبة
qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi baan maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo yaquulu leh man massa ruuxii taabta farjahu xubinkiisa taranka taabta falyatawadda' ha weysaysto rawaa waxaa wariyey ibnu maajah waalahram abu bakrin alahram ayib kadalika waxaa wariyey ibn abi shayba طبراني أبو يعلى طحاوي يا بيهقي وعود الشيخ وصححه وحا صحيحية أحمد وأبو زرعة أيا صحيحية أبو زرعة الرازي حديث كسنة كيسة انقطاع باكوشرة سنة كيسة انقطاع باكوشرة وبخاري يا ابن معين يا أبو زرعة يا أبو حاتم يا النسائي انتوا وحي إليهن مكحول حديث كان كموصا مقلن ننك الشيخ كيسة عن بصلي انقطاع سوا كوشرة دحين بأرنتا كو خلافي حافظكنا هو الرجحي هذا الكدحين برجح والصواب وحوي جماعة هذا الكود الراجح أي ماذا نقدك أي هذا الكود الراجح هي إنه صن مكحول عن بسك مغلب طيب إلا الله بعد وحوي مكحول لفتي سوى مدلس ونا عن عني لا وضع إلا الصواب تطبو سندك ضعيف ليه لكن سندك ضعيف هذا xadiidka wuxuu ku xoogoobayaa xadiidkii ka horreeyey saas daraaddeed buu wuxuu noqonayaa daciifu sanad laakiin matnigiisu waa xasan saasaa sax ama waxaad leedahay xasan ligayrihi saasuu noqon karaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله من أفضى روحي قاعدة بيده قعنتي سلقاعدة إلى ذكره حبنكي سترنك لقاعدة ليس حال أصنهن دونه حبنك ترنك سكديس سطر وح أسطره أيضا حبنك ترنك مركا أسطر أوسنك سكينين أو أن وحود حينين فقد وجب وحا واجبي عليه كركيس وحا كواجبي الوضوء ويسقادت باكواجب روى حوري أحمد باوريي كذلك وحا وريي شافعي في الأم ابن حبان حاكم دار قطني طحاوي بزار طبراني في الأوسط وحا صحيحيي يعني حاكم بصحيحيي ابن عبد البرنا سنة كيسوه تحسينيي وكذلك محوءها مرنا وو تحسينيي مرة وو صحيحيي ابن السكن بأسونا صحيحيي ابن عبد البر إيه الشيخ الباني انتبه حديث كان مركا وحو يسونا سيدو كاليتو حسن كن قنية إن لم يكن صحيحا حديثي كهريسي حديثكم حبيبة إيا كي بصرة أيولا معنيه سيداس دراديد صحيح أما حسن قنية معنا طيب wuxuu yidhi xadiidkani sheekhu wuxuu yidhi wa huwa xadiidkani buuri yamnacu wuxuu diidayaa ta'wiila hayrihi xadiidkan waxaan ahayn fasiridda lagu fasirayo cala alistixbaabi lagu fasirayo hayri hada alxadiid waay xadiidkan axaadiista aan ahayn oo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga wadaa istixbaab baa laga wadaa haddii aad taabataan weysaysta sunno ahaan كان ديدا يقول وهو حديث كان يمنع وحديدا يا تأويل غيره أحاديث تكلم فسرد اللغو فسري على الاستحباب اللغو فسري وديدا ويثبت وحنا السجيا بعمومه حديث عموم كيس النقض أيو سجيا برين ويسد إن بريس ببطن الكف كفك أما قعنت على عشر وظهره يطبر كذا labada kii lagu taabtaba inay burinayso ayuu umumkiisa ku sugayaa wayanfihi wuxuu diidayaa xadiidku meesha ka saaraya bimafhuumihi fahamkiisa mantuuqa ma laakiin bimafhuumihi wuxuu anfinayaa min waraa'i haa'ilin teed gadaash wa bighayri al-yadi iyo gacanta waxaan hadii lagu taabto inaysan weysada jabinayn inay weysada jabinaysana uu anfinayaa macna طيب hadalka sheekhu wuxuu ka wadaa culimada qaar baa waxay yiraahdeen axaadiista hore oo dhan waxay ku fasireen amarka ku soo arooray waa istixbaab xadiidkii busra muxuu ahaa man massa dhakarahu fala yusalli wa nahyi soma nahyigaasi waxay yiraahdeen waa un muxuu ahaa lagu xambaaraya karaaho ويتوضأ من مس الذكر بمعنى الأمر بيقبتها استحباب بيكو حنبارين من مس فرجه فليتوضأ استحباب بيكو حنبارين لكن حديث كان ديدي بوليه تفسير كأحاديث تكال استحباب أي كو حنبارين علماء قاركود كان ديدي محويد من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سطر فقد وجب عليه الوضوء فقد وجب ما استحباب بعد مرين كرتا مركا سنني ما لقى وضع مرين كرتا ما حي الوحوب عبيري فقد وجب
saas daraadeed wuxuu leeyahay lafdigaasi ixtimaal axaadiistii hore geli karo istixbaab lagu fasiri karay ayuu kan meesha ka saaraya oo awdaya macnaha waxa kale uu sugayaa buu leeyahay xadiidkani marka uu xadiidku yidhi u fiirsada muxuu yidhi man afdaa biyadihi gacantiisa la gaadha biyadihidaasna cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa gacanta ama ku taabo calaacasheeda iyo dhankeeda cad ama dhabarka ku taabo labaduba way soo gelayaan maxaa yeelay labadooda soo gacan lama wada dhaho labada gacan baa la dhahaa xaggana gacan way xaggana gacan way xadiiskuna muxuu cabiray biyadihi ma kala qaadin sidaas daraaddeed ama dhabar ku taabo ama guda ku taabo wuxuu tabriirinayaa waa madhabka xanaabilada wuxuu qabaa ama gacanta calaacasheeda ku taabiya dhanka cad ama dhabarka ku taabee haddayba gacantaadu gaadho waysadii way kaa jabtay xubinka taranka hadday gaadho shaaficiyada oo isla qabaan inay jebinayso taabashadu jebinayso ayaa waxay leeyihiin taabashada jebinaysa waa midda calaacasha iyo dhanka cad aad ku taabato laakiin haddaad dahrul muxuu ahaayey alyad gacanta dhabarkeedaoo dhankana haddaad ku taabato waysada ma jebinayso yaa qaba shaaficiyada halkaasay xanaabilada iyo shaaficiyadu ku kala tegayaan marka wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo madhabka shaaficiyadu radin rabaa madhabka shaaficiyada waxaa diiday oo radiyey buu leeyahay xadiidku wuxuu yidhi biyadihi xaggay ku kala qaadeen marka baatinulkaf iyo daahirulkaf xaggay ku kala qaadeen buu leeyahay xadiisku gacan oo dhan buu cabbiray macnaha way macnaha uu ka wado marka wayuhbitu bicumuumihi annaqda bibatni alkafi wa dahrihi marka wuxuu radinayaa shaaficiyada oo masalada guud ahaan la qaba laakiin halka ay ku kala tegayaan ama hadalkan dambe oo wayanfiihi bimafhuumihi min waraa'i xaa'ilin wuxuu ka wadaa xadiisku waxaa kaloo uu diidayaa weyse qaadadka in la weyse qaato haddaad taabato xubinkii laakiin aad taabato asagoo laydiin dhexeeyo ama gacanta waxaan hayn aad ku taabato markaa in laga weyse qaadanayo waa diidayaa xadiisku oo wuxuu leeyahay markaa tilmaamayaa mafhuumkiisu inaan laga weyse qaadanayn xaggee buu ku tilmaamayaa taa iyadan wuxuu ku tilmaamayaa man afdaa biyadihi ilaa dakarihi soo muusan dhihin muxuu ku xidhay marka laysa duunahu satrun halkaa waxaan ka fahanay haddii gacanta taabashadeeda iyo xubinka uu u dhaxeeyo astur wax kala teeda markaa weysadu ma jabayso soo ma waxaa kaloon ka fahanay biyadihida waxaan ka fahanay gacanta waxaan ahaynoo jidhka intiisii kala haddaad xubinka ku taabato ayadana inaysan weysadii jabaynin labadaa xugunba mafhuumka xadiiskan ka qaadanayna soo ma oo mafhuumka anfinaya macnaha taas hadalka sheekhu sidaasuu ka wadaa macnaha وفي لفظ كلا وحا كسغان وفي لفظ الشافعي امام الشافعي لفظيسا وحا كسغان حديثك هو وريي حديثك الرجا وريي بو كميدي طيب وفي لفظ الشافعي وحا كسغان اذا غورتي افضاء غارسي حدكم متكين بيدي غعنتيسا او لا غاaro الى ذكره ليس حال سنهان بينها iyo وبينه بينها غعنتا iyo وبينه ذكرka dhexdooda xaal sanahan shay waxba sida hadduu gacanta yani xubinka la gaadho falyatawaddaha weysaysto yani lafdiga shaafici uu wariyey iyo lafdigaasi farqi bandhab baa u dhexeeya lafdiga hore waxa weeyaan laysa duunahu satrun lafdiga shaaficina laysa baynaha wa baynahu shay'un waa isku macno soo ma طيب حديثك marka waa xadiis saxiix وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحول أيما رجل ننكسته أو مس تابته فرجه حبنكي سترن كتابته فليتوضأها ويسيست وأيما امرأة هويني كسته أو مس تابته فرجها حبنكي ذا ترن كتابتانا فلتتوضأ يدنها ويسيسته رواه حوري أحمد باوري كذلك وحوري ابن جارود دارقطني بيهقي طحاوي في شرع معاني الآثار وحا صحيح حديث كاسي الإمام البخاري الخبر أيو كو تحسينيي
xadiiskaas ama xadiistaas aan soo marnay kulligood hal macnay faa'iideynaysa hal qolaana dilishanaysa waxa dilishanaysa culimada qabta xubinka taranka taabashadiisu inay weysada jabinayso طيب sidaana waxa qabta shaafiiciyada iyo xanaabilada qaba labada madhab baa qaba laakiin labadoodu waxay ku kala tagayaan saan horeyba u soo sheegnay xanaabiladu waxay leeyihiin gacanta meel kasto kamid ah haday taabato weysada waa jabaysa shaafiiciyaduna waxay leeyihiin ma aha gacanta dhankeeda cad iyo calaacasheeda baa weysada jabinay hadii lagu taabto halkaas ku kala tagayaan laakiin way isla qabaan masalada qaybteeda hore waxa khilaafsan xanafiyada oo waxay leeyihiin taabashadu weysada ma jabisaba sinaba dad maanta dhan ku galgalato ama shahwo u taabo ama muxuu ahay si kale u taabo ama gacantu ha kaaga dhacdo ma jabinaysay ku tageen waxay dilishanayaan xadiid Talq ibn Ali oo sheekh hadda uu inoo keenin oo Talq ibn Ali baa wuxuu leeyahay waan soo baxnay buu anagoo wafdi ah markaas nabiga uu nabi sallallahu alayhi wasallam waan la mubaayacoonay waana la tukanay buu anagoo la joognaa nabiga nin u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ya rasuulallah ma tara fi masjid dhakari fi salah rasuulka ilaahay oo say kula tahay ruuxu markuu isagoo salaada ku jira haduu xubinkiisa taranka taabto markaas nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa hal huwa illa bad'atun aw mudghatun minka oo ma wax kale yahay soo xubin uun jirkaaga kamid ma soo xubin uun kamid ma طيب macna waxa laga fahmay ya inuu jabinaynin oo gacantaada haday taabato ma ka jabaysa oo madaxa hadaa taabato ma ka jabaysa bowdada hadaa taabato ma ka jabaysa waa uun xubin jirkaaga kamid saas lagu yiri طيب xadiiska waxa soo saaray Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo Nasa'i iyo qeyrkood sanadkiisa dacfi baa ku jira oo ninka leeyahay Qays ibn Talq baa la haysta laakiin culimada badan way saxiixinayaan waxa saxiixiyay Tabarani ibn Hazmi Tahawi Amr ibn Ali al-Fallas Sheikh Albani in kasto mutaqaddimiintu ay u badnaayeen inay daciifiyaan xadiidkan Talq ibn Ali oo waxa daciifiyay Shafi'i al-Imam Shafi'i Abu Hatim al-Razi Abu Zur'a Daraqutni Bayhaqi ibn Jawzi iyo qeyrkood xadiidka Talq ibn Ali waa xadiidka marka caaridsan ahadiistan soo marnay oo uu nabigu yiri waa uun jirkaaga qayb kamid ah xadiiskaasina xanafiyadu qabsadeeno waxay yiraahdeen taabashadu xubinka la taabto weysada ma jabiso طيب sidaasi hadii la kala maray culimada qaar kood waxay qabaan labada xadiis hal is waafajiyo waana sida muhaqiqiinta qaar kood ay marayaan rag kamid waliba muhaddisiinta u badan see la isku waafajinayaa siyaabo kala gedisan bay isku waafajiyaan qaar waxay leeyihiin waana sida u fiican xubinka taranka hadaad shahwo u taabato oo damac gacanta u geeyo weysadii waa jabaysaa waana ahadiista hadda faraha badan soo sheegnay macnaha ay ka hadlayso xubinka taranka hadii uu gacantu ka gaadho laakiin aadan shahwo u taabanina marka weysadii ma jabayso waana macnaha uu tilmaamayo xadiidka Talq ibn Ali maxay yeelay nabigu muxuu yiri waa uun jirkaaga qayb kamida macnaheedu waxa weey jirkaaga qayb kamida shahwo lama aado sooma shahwo looma taabto marka uun jirkaaga qayb kamida hadii aad ugu tala gasho gacantu ku dhacdo sida jirka kaleba ay u taabato markaas waa uun qayb jirkaaga kamida hadiise laakiin aad jirkaaga xukunkiisii ka bixiso oo aad ula dhaqanto wax jirkaaga ka baxsan oo kale shahwo la aado sooma ilaa marka jirkaagii waad ka saartay caadiga loo taaban jiray marka waxay leeyihiin weysada waa jabinaysa waana xadiidka Busra iyo xadiista kale macnaha ay ka hadlayso waa sida waa macnaha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muhaqiqiin fara badan ay marayaan oo sidaas ay isku jamcinayaan xadiista macnaha qaarna waxay ku jamcinayaan awjuuda loo jamciye kamida hadaad iyadoo shay idin dhaxeeyo gacantu taabatana weysadu ma jabayso oo xadiidka Talq ibn Ali baa marka waxaan u jeedaa xadiiska Talq ibn Ali macnuhu ka hadlayo hadii gacantu iyadoon loo dhaxaynin ay xubinka gaadhana weysadu waa jabaysaa oo xadiista kale ku xambaaraya macnaheena waa macna saddexaadna waa jira way ku jamciyaan adiga waxa way warka murtidiis sidaas weeyaano wuu jabinayaa hadaad shahwo u taabo saas raajix hadaad shahwo u taabato wuu jabin hadiise gacantu ka gaadho ma طيب باب الوضوء من لحوم الإبل وحباب يهي ويسيسي لغا ويسيستو هيلبكا جيلا
halka waxa inooga soo baxaysa marka su'aal aad u fara badan oo muxuu ahaayay aad u badan oo hooyooyinka iyo maamooyinka aad u weydiiyaano ilmaha yarka markay saxarada iyo kaayadiga ka dhaqayaan xubinkiisa taranka taabashadiisa weysada ma jabisa ba aad u badan jawaabteedu waxaan u maleynayaa in la helay hada hooyo ilmaheeda xubinkiisa de shahwo miyay u taaban ya bas weysadu kama jabayso mana jabinayo macna taana waxa xoojinaya waxay ahayd mas'alo caan ah oo dumarka haysata mimma ammat bihi albalwa bay kamid ah dumarku sidan u bay caruurta saxaradii kaayada uga dhaqi jireen hadana ma dalika nabigu ma dhihin ka weysaysta salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ayadoo sida u ahayd mas'alo mashaqqa oo dadka haysata ayuusan hadana amrin inay ka weysaystaan saasay marka mushkila male baabul wudu'i weysaysigii baabu yahay min luhumil ibli geela hilibkiisa laga weysaysto cunida geela hilibkaasi nooc dooni ha noqdo ama muxuu wasalada ha noqdo ama oodkac iyo colob ha noqdo ama sambuusaha ku jiro qaar baa waxay dhaheen sambuusaha hilibka ku jira hilib geelba ma waa sambuusa la dhahaa sidoo dooni ha ku yimaad mar hadduu yahay hilib la raamsanayo yahay waa hilib geel waa عن جابر بن سمرة أن رجلا نبا سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحو ويدي أن توضأ مويسيسنين نبي الله من لحوم الغنم أريق هيلب كيسا مكويس قادنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت هداد دونتو توضأ ويسيسو وإن شئت هداد دونتنا فلا تتوضأها ويسيسن خيار بالله هداد هيلب أريق أنتو هداد دونتنا كويس قادة هداد دونتنا هكويس قادنا قال وحوري أن نتوضأ ميان ويسيسنا من لحوم الإبل قيل هيلب كيسا هدان عنما كويسيسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها توضأ ويسيسو من لحوم الإبل قيل هيلبه سكويسيسو قال وحوري أصلي مت كذا في مرابض الغنم أريق حرديس هي ماشو فريستي قصة عليه ما كنت كذا ماشا قال النبي وحوري نعم كنتك قال وحوري أصلي مت كذا الرسول إلهي في مبارك الإبل قالوا ماله فريست الصبادة حردي سيء ما كنت كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مايا أري يقول لك لقاد سمعت كلا تجي ماشي فريسانيين وأقول كلا تجين هيلب كودين وأقول كلا تجين روح وري أحمد باوريه ومسلم يا مسلم باوريه حديث جا واحد اللي شنيه علماء قبتها hilibka geela cunitaankiisu inuu weysada jabinayo طيب وانا قول الامام الشافعي القديم امام الشافعي لaba qowl buu mas'alada kale yahay qowlkiisii hore wuxuu qabay hilibka geelu inuu weysada jabinayo waana madhabka sidoo kale xanaabilada ahmed ibn hanbal madhabkiisa mashhuurka waa sidoo kale culimada xadiiska qaatibatan ama badankood culimada xadiiska ayaguna halkaas ay mareen oo waxay qabaan hilibka geelu weysada waajibinay hadii la cuno xadiiskan Jaabir ibn Samura ba asal waa masalada iyada macna maxaa yeelay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu kala qaaday hilibkii ariga iyo hilibkii geela kala qaadkaasina xigmad baa ku jirta midna wuu amray midna ruuxa ayuu khiyaar galiyay وعن البراء بن عازب قال وحول سئل ولا ويدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسولك وحل ويدي عن الوضوء ويسيسك من لحوم الإبل قاله البه سلق ويسيس فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا ويسيست منها هلبك قال حقيسك ويسيست وسئل وحل ويدي عن لحوم الغنم أرقه البه فقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا هويسيسننا منها حق هذا لازم إذنكم هو وسئل وحل ويدي عن الصلاة صلاة تكشو في مبارك الإبل قال ميله فريست لغتو كذو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوها تكنين فيها ميلها قالوا فريستها كنت كنين حيلا فإنها يضو من الشياطين تحق ذاك أحد قالوا شياطين بك أحد شياطين بالغا أبوري سيد لفظك العبيري وسئل وحل ويدي عن الصلاة تكشف في مرابض الغنم أرجع حردي يميله فريست لغتو كذو فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا تكذا فيها أرجو ميله فريست كنت كذا يحرديس وحيل فإنها يضو بركة وبركة أرجو وبركة سالديس يحرديس ميشه فريستنا وبركة كنت كذا أما قيل وشيطان روح وري أحمد باوري وأبو داود كذلك وحوري ترمذي ابن ماجه اسمه مختصرة
حديثك وحا صحيحيي أحمد إسحاق بن راهوية ابن حبان ابن خزيمة وحو ليه ما أركن علماء الدحضود علماء حديث كان دحضود خلاف حديث كان إنه صحيح يا إسكو خلاف سين يعني وحو سوق ورينا يا علماء حديث كانوا إسكو وافقسين حديث كان إنه صحيح طيب الشيخ الباني عليه رحمة الله يسقنا هو صحيح سياد وتا حديث كاس وسيادة وتا وحوي وان كهل دوناي لكن إن محوها هي كبر أركتوي علدا جيلا هيلب كيسة محوها يحردي سبا حكم كالوسي وحديث قلت المامية صاصي معنا فإنها من الشياطين وعن ذي الغرة وحلقة ورينيا نجي برير لها ذي الغرة ونن صحابي يوه يعني ذي الغرة الجهني بالي هذا أما الطائي كتبت قاركودنا يعيش بكم مقعابين يعيش وعن ذي الغرة وحلقة ورينيا قال وحوري عرض وحا صوبا بحي أعرابي نن أعرابي والربادية للرسول الله أصوبا بحي صلى الله عليه وآله وسلم والحال رسول الله رسول الله يصير أصعده isagoo rasuulku socdo ayaa nin Carabiya u soo banbaxayo banaaga u soo baxay faqala markaas wuxuu ya rasuul rasuulka ilaahay tudrikuna waxaan soo haleesh as-salatu salati baa nagu iimaanays wal hal nahnu annagu fi a'tani al-ibli geela sabadiisa aan joogno a'taanta iyo mabaariktu waa isku mido waa geelu meeluhu fadhiista ama xilliga uu ceelka joogay cabayo biyaha cabayo meesha lagu hore uu fadhiistaha noqoto ama xirada rasmiga ah noqoto ama xilliyada uu xataa harsanayo meeluhu fadhiistaan noqoto kulli waxay noqotaa a'taan iyo mabaarik baleeyda tudrikuna waxaan nagu iimaanaysa as-salatu wal hal nahnu annagu fi a'taani al-ibli geela sabadiisa iyo xiradiisa annagoo joogna afa nusalli ma tukanayna fiha dhaxeeda ma ku tukanayna faqala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maya faqala wuxuu afa natawadda miyanu weysaysanayna min luhumiha hilibiyalkeeda ma ka weysaysanayna qala wuxuu nacamha qala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qala ninki wuxuu أفنصلي ما تكنينا في مرابض الغنم أرجع حرديس يمشوا فريست ما كنت كنينا قال النبي وحول نعمها قال وحول أفنتوضأ ما ويسيسنينا من لحومها أرجع هلبه سمك ويسيسنينا قال النبي وحول لا مايا روى حوري عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بكوري طيب سنة كيسة محوها هاي مقرنين عدك هذا الشيء ما أركن لكن حديثك حتى دي سنة كيسة وحكو تشيرو حديث تهرب يا حوتشينيا ودي حتى ضعف سنة كوجرو وحو نقونيا حسن لغيره بو نقونيا قال وحو إسحاق بن راهويه وحو صح وحا أصحي في الباب باب كان دحديسا وحا كو أصحي وبابك هيلبك جيلو إنو ويسده جبينيو بابك وحا كو أصحي حديثان لبا حديث با أصحي عن النبي كأصحي صلى الله عليه وآله وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث كي هوري مسلم وريه بابك لوغو بلاابيا iyo وحديث البراء ابن عازب وحديث كيه حديثك لباد سوما حديثك لباد بابك لبدا حديث بابك كو اصحي بوري الامام اسحاق بن راهويه طيب حديث كاسي احاديث تاسي واحد دليشنيه سان هوريبا u sheegnay culimada qabta inay hilibka geena cunidiisu weysada jabinayo طيب وانا قوليان صوت المعنوي مذهبك حنابلة هي قديم قول الشافعي هي مذهب أهل الحديث مذاهبتك لبضن كود وحي قبان جمهور توض hilibka geela cunidiisa inuu san waasida jabinay وانا جديد قول الشافعي الإمام الشافعي قوله الجديد ayaa sida qaba hilibka geela inuu san weysada jabinay laakiin imaam shaafici alayhi rahmatullah waxa ka sugan madhabkaasi qaadashada uu qaatay waxa ku kalifay isaga sheegayo xadiidkan inuu sugan yahay iyo inuu san sugnayn ba u kala cadaan waay markaas wuxuu yiri in sahha al hadithu fi luhum al ibli qultu bihi budi hilibka ku soo xadiidka ku soo arooray hilibka geelu inuu weysada jabinayo xadiidkaasi haduu asaxo sidaasan qabaa buu Shaafici waan qabaa waxa uu faa'iideeyo masaladaas sidaasan u qabaa buu ragii madhabka uga dambeeyay imaam Shaafici ee muhaddisiinta ahaa ee madhabka Shaaficiyada u khidmeeyay dhanka xadiidka iyo adilada ninka ugu caansani waa ninka la yiraahdo al-Imam al-Bayhaqi oo loo yaqaano ash-Shafi'i as-Saghir baa la yiraahdaa
bal waxa la yiraahdaa yani waxa weeye gallada uu ku leeyahay Shaafici iyo Shaafici gallada uu ku leeyahay Bayhaqi waxa ka badan baa la leeyahay Bayhaqi gallada uu Shaafici ku leeyahay sababtu waxay leeyihiin wuxuu u khidmeeyay fiqhigiisi oo adillo iyo dhanka xadiis ninka Imaam al-Bayhaqi alayhi rahmatullahi ba markaas wuxuu yiri qad sahha hadalka Imaam Shaafici buu keenay markaas wuxuu yiri qad sahha fihi hadithan hadith Jabir ibn Samurah wa hadith al-Bara qalahu Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq buu Shaafici haduu hadisku u cadaan waaye inuu asaxay in kale laba hadis ba masalada ku asaxay buu wa hadith Jabir iyo hadith al-Bara inay labada hadith asaxeena waxa qabay Ahmad ibn Hanbal iyo waxa yiri Ishaq ibn Rahawiy labadaas ba khaasatan Ahmad ibn Hanbal Imam Shaafici uu u qirsana inuu hadithka kaga fiican yahay oo wuxuu dhigi jiray Ahmadow hadithka adaa igaga fiicane wixii hadithee asaxay ii sheeg buu dhigi jiray saan u qaato hadithkani maadaama uu asaxay oo Sahih Muslim marka ku yaalo Imam Shaafici uu hadalkiisii ahaadu asaxay waan qaba madhabka Shaafici wuxuu yahay marka ya madhabka Shaafici waxa weeyaan inay hilibka geela cunitaankiisu weysada ku jabayso sidaas madhabka Shaafici marka tacliiqiisa iyo xadiidka sugnaantiisa la saaro waa sidaas daraadeed baa culimada Shaafiiciyada muhaddisiintooda xadiidka yaqaan in badan oo kamida halkaasay mareen oo way khilaafeen ra'yigan kutubta fiqiga mutaakhiriinta Shaafiiciyadu u badan yahay oo ah inuu san jabinayn in badan oo muhaddisiinta Shaafiiciyada way khilaafeen waxayna xukumeen inuu jabinayo saasana sawaab ama Shaafici ha khilaaf ama fulaan iyo callaan ha khilaafe xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa nin walba ka xoog badan Soomaa haduu xadiisku asaxo waa in la qaato way aymaduna saasay dhamaantood dardaarmi jireen marka weysadu waa jabaysaa hilibku nooc dooni ba noqon su'aal baa la isweydiinaya oo su'aashaasi waxay tahay maxaa hilibka geela lagu maagay hilbihii kale oo dhan xataa gari ha ahaado gariga ka weysaysta lama dhig oo dameer farowga ka reeysta lama dhig oo muxuu ahay biciidka iyo goodirka ka weysaysta lama dhig wargeela maxaa lagu maagay su'aashana timid nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis buu ku cadeeyay xadiidka aan soo sheegnayna waxbuu ku tilmaamay oo shayaadiin bay ka ahaatay waxa si cadeynaya masalada iyada xadiis uu warinayo Abdullah ibn Mughaffal saxaabiga la yiraahdo wuxuu leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sallu fi marabid al-ghanam ariga xiriisa ku tukada wala tusallu fi a'tan al-ibil geela sabadiisi xiradiisana ku tukanina maxaa yeelay fa innaha khuliqat min ash-shayatin shayaadiin baa laga abuuray geela xadiiska waxa soo saaray ibn Abi Shaybah ibn Hibban Ahmad ibn Majah sanad saxiixayna ku wariyeen shayaadiin baa laga abuuray maxaa laga wadaa marka waxay leeyihiin culimadu macnaheedu ma aha geelu wuxuu ka samaysan yahay maadada shayaadiintu ka samaysan tahay laana shayaadiintu maxay ka samaysan tahay ya naar bay ka samaysan tahay Sooma yaani dabka holaciisa bay shayaadiintu ka abuuran tahay marka geelu makaasu ka abuuran yahay haduu geelu ka abuuran yahay lama arkeen sidaas daraadeed maadadu ka abuuran yahay lagama wade oo haduu shaydaan ka abuuran yahay lamana dhaqdeen lamana fuuleen Sooma oo gaadiidahan looma fuuleen xoolahana laguma darsadeen sida shayaadiinta la iska fogeyn laha oo laga cudu bilaysan laha macnaha marka lagama wade waxay leeyeen culimadu ibn Hibban baa si fiican masalada u dhigdhigay oo wuxuu leeyahay waxa laga wadaa shayaadiin baa laga abuuray macnaheedu waxa weeye khuliqal insaanu min ajal oo kale la mid insaanka waxa laga abuuray degdeg baa laga abuuray macnaheedu muxuu yahay ma jirkiisa iyo hilibkiisa iyo lafihiisa degdeg ka abuuray maxaa laga wadaa dabeecadiisa degdega waa Sooma tanina waa sidoo kale geelu dabeecadii shaydaan buu leeyahay waa khuliqat min ash-shayaadiin dabeecad shaydaan buu leeyahay oo macnaha qalafsanaantan iyo dadka isaga la jiray qalafsanaantooda iyo naxariistarrada iyo ruuxu arka inuu ku tunta iyo muxuu ahay waxa soo dhan waa dabeecad shaydaan marka dabeecad shaydaan buu leeyahay bay ku fasirayaan sidaasay marayaan الإمام ابن تيمية يؤردقيس ابن القيم عليه رحمة الله يقول مسألة تفصيل سيادة بيسيق لنا أو وحي ليهين وأنا مسألة دقيقة ما دام ضبيعة الجيلة أي شيطانته
ibni aadamkuna wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo oo uu quuto ayuu dabeecadiisa yeeshaa sooma sida daradeed doofaarka dadka cuna dabeecadu wuxuu leeyahay la yiraahdaa dayuusnimo sooma malaha wax la yiraahdo qiiro male haddii gabadhiisa iyo xaaskiisa iyo kulli hortiisa lagu qabsado caadi bay u tahay sooma maxaa keenay doofaar cunida keentay waana dabeecadda reer Yurub hadda haysata waa sooma iyo reer galbeedka iyo gaaladooda doofaarka cunta marka waxay leeyihiin geela cunidiisa markuu ruuxu quuto hilibka quuto dabeecadii hilibka ku jirtay geelu lahaa baa ruuxii u gudbaysa ruuxu wuxuu noqonayaa marka ruux qalafsan oo naxariis lahayn oo dabeecad shaydaan leh oo aan turaynin dabeecadaas ku soo baxaya maadaama ay taas tahay shaydaanka maadaama uu dab yahay dabka maxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa waysadani marka waxay dabinaysaa shaydaannimadii geela hilibkiisa ka soo raacday bal fahmi waa macna daqiiqa oo aad u qiimo badan oo culimadu ay kala baxeen markaad fiirisana waa aad bu macquul u yahay sooma xadiiska nabigeena kala baxayaan salawaatu rabbi wasalaam calayhi oo ah shaydaan baa laga abuuray dabiicadii shaydaan baa meesha gashay shayaadiintuna waa dabkana biyaa lagu qaboojiyaa waysadani marka waxay yareynaysaa dabeecadii xumayd ee geela hilibkiisa ka soo raaci lahayd fadal shaqadan باب المتطهر يشك هل أحدث وحباب يها المتطهر كي إصداهريي وظهر قبي ويس قبي كاسو يشك شكينا هل أحدث إنه حدثي كشكيني واد ويس قبتي ظاهر بعد هيد كدمنا الشك باديب كاغر شيء ويسدي ما كاتشبتي ومياد حدثتي ميس كامت شبي محو سمين يا ما الشك قادنا يا ميو ويسيسن mise yaqiintii hore u qaadanayaayo uu weyse qaba an Abbad ibn Tamim an ammihi qala wuxuu shukiya adeerkii waxa way Abdullah ibn Zayd ibn Aasim ibn al-Ansari waay qala wuxuu yiri shukiya waa la sheegtay ila nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga waxa loo sheegtay oo looga dacwooday ar-rajulu ninka oo yukhayalu loo malagelinaya ilayhi isaga loo sawirayo ilayhi isaga annahu isagu yajidu inuu helayo ashayga inuu helayo fi salati salada dhexdeeda waxa nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam oo dadka qaarkood uga sheegteen nin salaadiisa dhexdeeda loo sawirayo oo la shaki gelinayo in uu salaada dhexdeeda wax helay yaani wax ka soo bixin ama neef ama wuxuu ka soo bixin qaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yansarif yusan ka bixin salaada hatta yasma'a ila maqla sawtan dawaq waxa ka soo baxay neefta ama shanqadhiisa ila aad maqasho أو أما سيجد هلو ريحا أما هلو أما إني وحكوسو أوران أما شنقرنا بدكت هذا مقشم ويه سكلا هو قبح سكوا الصلاة هذا روح وري الجماعة جماعة دي وريسي إلا ترمذي مويه معينو في دي حمس حديث كاسي شكي وحوال لكم مدرس شكي وحكا سوقات مالي وانا حديث كأصل كوا قاعدة عنك اليقين لا يزول بالشك هذا يقين هيستي يقين تاسي مزوشو شكنا كمزوشو يقين تاد هيستي وحوا إن أدوي سقبتي شكي بعد ديب كاغدش وحكا سوقات مالي وأدوي سقبته يقين بعد هيستي إن ويسد أدو تشبتي وحد كشك ذي مياد ويسيستي ميس ماذا ويسيسن ما آدم ويسيسن لأن وحال له بي إن آدم ويسقبل شكي كان ديب وكي من ماشا كسر طور shaki sidiisaba wax kama bedelo dahaaradaada iyo dahaara la'aantaada xadiiskaasi wuxuu xidhayaa dad aad u fara badan oo imtixaan ka haysto waswaas oo salaada markuu galo la waswaasiyo waxa ka socota salaada markuu galo neef aan ka soconin banaanka markuu joogo baradu sidee wuxuu ku leeyahay sheekh salaada markaan galo baaba lay bilaabi waa shaydaan isaga nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay intuu gadaal ka soo galo buu gadaal ka afuufaya wax ka baxaya ma jiro laakiin isagii waa ku afuufay mid wuxuu leeyahay mar alla markaan salaada gala baa xubinka taranka wax ka iimaanay waxba iga dhibdhibcay oo markaad banaanka joogtana ma waxba iga ma dhibcayaan
waxay markhaati u tahay inaad waswaas ku hayo waswaaskaasaa marka shareecadu xidhaysaayo hadduu waswaaskaasi kugu furmo marka dambe waali iyo junuun buu dadka gaadhsiiyaa shareecadu marka waxay leedahay waxaad hubto in wax ku qaybso waxaadan hubin oo shakiya meesha ka saar waxna ku qaybsan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي wuxuu ka warin qaal inuu nabigu yiri ida goorti wajada uu helo ahadukum midkiin fi batnihi calooshiisa dhexdeeda shay'an wuxuun ka helo wuxuun caloosha dhexe ma laga helaa xogaa caloosha wax ku dhaqdhaqaaqayso shanqadhayso qululucda ku hayso waxba ka socdo oo fa ashkala marka uu ka ishkaal galo ka dhex galo calayhi korkiisa uu ka dhex galo maxaa ka dhex galay oo ka qarsoomay akharaja masoobahay minhu xaqiisa shay'un miya ka soo baxay am la misamaya arintaas ka qarsoonto ka dhex gashay muxuu sameeynaa marka fala yakhruj yusabbihin min almasjid masaajidka yusan ka bixin hatta yasma'a ila maqla sawtan masjidka macna salaada laga wada hatta yasma'a ila maqla sawtan aw ama sayjida uu helo riixan ama ur uu helo ila alhaqiiqa hesha ka bixin u fiirsada qariina meesha taal qariinada meesha taal maxay tahay calaamad baa taalo caloosha ku dhaqdhaqaaqaysa caloosha hadduu dhaqdhaqaaqdana waxay u badan tahay inay wuxuun ka soo baxaan calooshii ku dhaqdhaqaaqaysa yaa haddana shaki waxa yimid ama wax ka soo baxay ha dhageysanin baa lagu leeyahay caloosha ha qurruclayso hana dhaqdhaqaaqo adiga inay wax ka soo baxeen ma hubtaa may waan malaynaya ka bax salaadaada wado wadna waysa qabta shakiga iska روى حوري مسلم والترمذي وحول الشيخ وهذا اللفظ لفظ يعني عام واي في كل الصلاة صلاة ضمب عام كويا في حال الصلاة دي صلاة حال كأت كتشرته وغيرها هي صلاة غير كده أيو لبضب السوق ليا حديث كان وحى سوق ليا بمعنى كي هو رمحوها يجد الشيء في الصلاة صمايا كهور أن صلاة مركز لحظة إذا كشك كده يا كم وقت لكن كان معها كم وقت كان أما الصلاة كتشر أما الصلاة ها كتشرني shaki hadduu ku qabto yaqiinna aadan haynin yaani wax way shakiga tuur waxba ka soo qaaday ilaa aad hubsato tayib marmar baa laga yaabaa inay sheegiin wax ka soo baxay oo hubto inay wax ka soo baxeen urna aadan helin shanqarna aadan maqlin laakiin aad hubto inay wax ka soo baxeen marka ma iska wadanaysa ma yaani waxa laga wadaa hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan inaad hubsato baa laga wadaa sooma hadaad hubiso sharti ma dabayl baa dhacaysa maxaad maqli ama meel buuq badan baad ku jirta adiga inaad hubiso ma la rabo inay sidaas tahay oo shakigaasi uu san wax ka soo qaad lahayn waa madhabka jumhuurta waay jamaahiir ahli ilmi baa sida ku tagay laakiin qaar baa qaba yaani riwaaya an malik ayaa wax masaladaas khilaafsan waana ra'yi dhaif waay baabu iijaabi alwudu'i waysadii waajibinteedu baabu yahay للصلاة صلاة درتي لو واجبيو والطواف هي طواف كدرتي لو واجبيو ومس المصحف هي كتاب القرآن كتابة شديس لو واجبيو ويسدي إن لو واجبيو ولو واجبيو صدح الرمض مركات تكنيسيني واجبتا مركات طواف سنة وكعبة طواف سنة إني واجبتا مصحف كهذا تابر ربطنا إني واجبتا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي وحوري لا يقبل الله وألا ما أقبل صلاة بغير طهور ظهر الآن ولا صدقة ما أقبله من غلول صدقة سو من غلول خيانة حقيت كأهات يعني حولا أتصو خيانت حولا عام ومسلمين تو إلهايا غنيمة دي بعد وحكا سو خيانت أما حوله ددوينات هاد وحكا قادت أما حتوية أما حوق بقى صدقات كبحصته إلهي كأقبل ماي تاسي معنا حولها حرام تقول ما حكم كالي روح وري الجماعة باوريسي إلا البخاري بخاري موي حديث كاسي هذا ماشي اللي قدر يشني وقيبته هره لا يقبل الله صلاة بغير طهور أما طهور ظهر قاضى شلآن يويس قبل آن إلهي صلاة ما أقبله انت سمحي ترجمة كجساب سنتي ترجمة كجساب سنتي إيجاب الوضوء للصلاة وكدليل كذا وانا اجماع ولا اسكما خلاف سنه صلاه روح تكن يويس قبل ان ينسن تكنكر اللهم حديبه وحكله او كري وايه مويه haduu biyo waayana tayamumkii baa loo fasaxay sooma hadii tayamumkii iyo biyihii iyo wax kasta u suuroobi waayana markaas waxa la yiraahdaa faaqitu at-tahurayn baa la yiraahdaa labadii shay la isku daahirin lahaaba ninka waaye muxuu sameeynaya uu tukan inda al-jumhur uu soo celin beeleeyeen markuu yaani xaaladda ka baxo
والصحيح وحويان مذهب كضائف من العلماء أي قبانه مسوا علينيو asagoo saa ku tukaday buu soo celin maxaa yeelay tabartiisa inta ah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inta sakaraankiisa ah sooma idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastada'tum inta sakaraankiisa ah intuu karay buu ilaahay ka baqay wuxuu san kari karin in la saarana ee wax weeyaan kamid maaha muxuu ahaayay تيسير كشريعة ديدس وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه وحكور عن جده أووجي عمرو بن حزم وحكور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كتب وقري إلى أهل اليمن اليمن وقري حقه كتاب وقري وكتاب مسائل فربضان أيكو يالان بوها وكان وحاها فيه كتاب كالحديث وحاها أو مسائل شكوية لكمدها لا يمس متابت القرآن إلا ظاهر روح ظاهرا موي طيب وخبر بمعنى النهي روح وري حديثك الأثرم والدارقطني سند كيس وحا كوتشر سليمان بن أرقم وانا ضعيف جدا وهو حديث كان لمالك بأسقنا في الموطأ مرسلا حالوي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب كتابك وحا كسقنا الذي كتاب كاسو كتبه أقري رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أقري وحا كمدها ألا يمس القرآن قرآن كإنه سنتابنين إلا طاهر روح ظاهر مويه حديث كاس طريقية دي ساسي ضعفي باكوشرة وقال أثرم وحوي أبو بكر أثرم أرضي أحمد بن حنبل وحوي واحتج وحا حجيسته الحديث كان أبو عبد الله با حجيسته يعني وحكوذا أحمد بكوذا واحتج وحجيسته أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر حديث ابن عمر بحجيسته أوكي لا تمس هتابنن المصحف ايه سمعيدين قريه سازيدين قريه لا يمس متابته المصحف مصحف كمتابته الا على طهاره كركيد مويه انه الروح طهاره كركيد كسغيا مويه لا تمس المصحفنا hadii saas la yiraahdana hataabani hadii kale ma taabtay noqonays xadiidka Abdullah ibn Umar oo hada meesha uu keenay sanadkiisa isagana dacfi baa ku jira oo muxuu ahaayay Saciid ibn Muhammad in ilaado majhuula sanad ku jira sidoo kale An'ana ibn Jurayjna way ku jirtaa laakiin labada xadiis ba sanadkooda dacfi baa ku jira waxa kale saddexaad oo xadiis saddexaad ah oo isla macnaha ku iimaanaya xadiis Uthman ibn Abi al-Aas oo Tabarani iyo Abu Daawud soo saaray fi al-Masaahif isagana sanadkiisu uu daciif yahay saddexda xadiis وحديث عمرو بن حزم هي حديث ابن عمر هي حديث عثمان بن أبي العاص صدح ذا حديث أو مدول بالسند كيس ضعف كتيره أي علماء يسكو حوجريا مركزي حديث كقدر جاء بمجموع شواهده بإليهن حسن بنقانا يا أم صحيح سند كيس واحد تحسينية ابن حجر حديث ابن عمر بن كوضة واحد صحيحية إسحاق بن راهوية sidoo kaleeto culimo kale muhaddisiintaana way muxuu ahay soo dhaweynayaan sida Shaqalmaani oo kale isaguna uu saxiixinaya macna xadiidkan Amr ibn Hazm waa xadiidka loo daliishado misxafka inuu san taaban karin ruuxan daahir ahayn maxaa laga wadaa ruuxan daahir ahayn ma dahaaradii weynayd ba xadadkii weynaa ruuxan daahir ka ahayn oo marka junubkii iyo xaaidadii baa loo diidayaa miya mise dahaarada waxa soo galaya xataa dahaaradii yarayd ee weysa qabka oo marka ruuxan weysa qabina looma ogolamiya macaanidaas oo xadiidka waa soo gali karta inayna taaban karin ruuxan weysa qabin oo daahir ahayn oo san musxafka taaban kareenina waa madhabka jumhuurta waa madhabka aimada afarta ah sidaas ay qabaan Abu Hanifa iyo Malik iyo Shafi'i iyo Ahmad basaas isku waafaqsan misxafka inuu san taaban karin ruuxan weysa qabin waxaana doortay madhabka isaga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah waana sida laga fahmayo itlaaqa xadiidka saas macna tahaarada ama tii weyneed ha noqoto ama tii yareed ha noqoto ruuxan daahir ahayn misxafka ma taaban karo sidaasayna u badan yihiin aimada iyo culimadu u badan yihiin qaarna waxay leeyihiin waa un sunno ee waajib ma aha waa daahiriyada madhabkooda ibn Mundir baana doortay inaysan laazim ahayn wa an tawusin an rajulin qala wuxuu misxaf kitaabadiisa waxa la yiraahdaa waxa laga wadaa misxafka mujarradka hadii misxafka uu tafsiir yahay oo quraanka uu hadal kale weheliyo
hadalkaa kale meesha ku yaalana uu qur'aanka ka badan yahay markaa misxaf lama yidhaahdee tafsiir baa la dhahaa xukumkana markaa waa isbedelaya oo aayada qur'aan ka midoo meel ku taalla hadal kalena weheliyo xukum misxaf ma qaadanayaan waxaana daliilu ah xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam hiriqla markuu waraaqda u diray nabigu sallallahu alayhi wasallam hiriqla markuu waraaqda u diray aayada qur'aana waraaqda la socday sooma aayada qur'aana baa la socday hiriqlo gaalana waa loo diray oon daahir ahayn sooma waraaq loo diray marka masaladaasi sidaas waa culimadu hadda ka hadlaan waxyaabahan kale hadda qur'aanka la geliyo sida cajaladaha iyo mobaylada iyo yaani taabashadooda bay ka hadlaan culimada mucaasiriinta lajna daa'ima culimada mamlakada ama sacuudiga ayaan arkay fatwadooda ay leeyihiin taabashada cajalku ma aha taabasho musxaf ma aha وبالتالي waxay leeyihiin waa la taaban karaa ruux isagoon daahir ahayn haddii cajalkii qur'aan ku duubnaasaa noqday mobilkiina waa ka sii xag jira inkastoo gelinta musxafka qur'aanka la gelinayo ishkaalkeedu badan yahay dee musqushii baad la geli sooma hadhowna ishkaal badan baa ku qabsanay وعن طاووس عن رجل طاووس وحا laga warin عن رجل nin wuxuu ka warinaya ninkaasoo qad adraka haleelay nabiga haleelay oo gaadhay soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh anna nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabigu qaal wuxuu yiri inma ad-dawaafu dawaafku oo bil bayti baytka la dawaafo kacbada la dawaafay salaatu wa salaad fayda goorti duftum aad dawaafaysaan fa aqillu yareeya al-kalaama hadalka yareeya yaani wax weeyaan kacbada dawaafkeedu waa salaad oo kale hadalka yareeya sida aan hadalka loo ogoleen salaada gudaheeda bay dawaafkana hadal badan lama ogolee yareeya rawaxa wariye ahmed baa wariyay wan-nasaa'i iyo nasaa'i baa wariyay ibn hajar wuxuu leeyahay riwaayadani waa saxiixa salbaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix illana mali tayib waxa soo saaray xadiidka sidoo kale tirmidhi iyo daarimi iyo ibn khuzayma ibn hibban ibn jaruud haakim bayhaqi ata ibn sa'ib baa laga warinaya an taawus an ibn abbas dariiqana wuu leeyahay oo macnaha waxa weeye ibn abbas xadiid kale laga warinay oo lafdigiisu uu yahay at-tawaafu bil bayti salatun illa anna allaha abaha fihi al-kalam dawaafka kacbada la dawaafaya waa salaad laakiin ilaahay wuxuu baneeyay hadalka faman nataqa fihi fala yantiq illa bi khair ee ruuxi hadlayo ku hadlaya hadal ka maarmi waay inuu dawaafka dhexdiisa ku hadlo khayr mooy wax kale yuusan ku hadlin hal diidahay laqwiga iyo sheekada iyo antarabaqashka iyo waxaan macna lahayn iyo macaasida iyo waxaasan la ogoleen khayr ku hadal hadii kala aamu salaad baad ku jirtaa طيب waxa saxiixiyay xadiidka ibn Abbas oo macnaha isaguna lafdigaas xaakim dhahabi baa ku waafaqay Sheikh Albani ibn Hajar baa tahsiiniyay xadiidkii horuu shaahid u yahay labada xadiid markii la isku xoojiyay xadiidku saxiix buu noqonay muxuu faa'iideynayaa dawaafka kacbadu inuu salaada la mid yahay salaadana maxaa sharti u ahaa waysa sharti u ahaa sidaas daraadeed marka dawaafayso waa inaad waysa qabto haddaadan waysa qabinna dawaafkaagu ma asaxayo sidaa waxa qaba jumhuur ahli ilmi baa qaba maalikiyada shaafiiciyada iyo xanaabilada ayaa sidaa qaba oo xadiiskan ay daliishanayaan waana sida daahirka laga fahmayo culimada qaarna waxay leeyeen war ma ahe sharti ma ahe laakiin waysa qabku waa sunno waana sida uu dooranayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah adiga xadiidka daahirkiisa waxa laga fahmaya inay waysa qabku sharti u yahay dawaafka sidaana jamaahiirta qabta hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam